dilkii qarniga ma aana qabil mise Sofiyeedkii Ruushka ayaa dilay madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke madaxweynihii Soomaaliya waxa hortuban boqolaal shacab gegida diyaaradaha ee Hargeysa dad sheeni qaarsan calanka cirka u eg ee buluuga ah ayaa sagootinaya asaga iyo ayaguba midna ma oga inaanay dib isu arkayn Antalyaal moodii waday ayaa ku dhex qarsoontay hawada Soomaaliya waa diyaaradii casriga ahayd ee mar Afrika ugu sareysay Somali Airlines waxayna nabad ku caga dhigatay magaalada Laascaanood oo boqolaal kale oo shacab ah ay ku sugayeen madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke madaxweynuhu waxa uu dhex qaaday dadkii u hornaa una helana waxaana loo sii gudbiyay guriga martida ee magaalada Laascaanood maalinta taariikhdu waxay ahayd Oktoobar 15, 1969 in yar kadib waxaa u soo galay guriga gudihiisa Siciid Ismaaciil Yuusuf Siciid Oofane mid ka mid ah ilaaladii madaxweynaha waxa uu rasaas madaxa kala dhacay marxuum Cabdirashiid Cali Sharmaarke wax yar kadib falka waxa aqal ka hareereeyay askartii madaxtooyada Soomaaliya waxayna gacanta ku dhigeen dambiilihii geystay falka dilka shacabka gaduuday dilka madaxweynaha ayaa soo buuxdhaafiyay barxadda hore ee guriga martida ee magaalada Laascaanood sida la rumaysan yahay waxa uu ku dooday in Siciid Oofane madaxweynaha uu dilay aana qabiil laakiin mar kale oo maxkamad la saaray waa uu iska fogeeyay inuu dilay aana qabiil wuxuu ku dooday inuu dilay khiyaamo ay galeen asaga iyo ra'iisul wasaarihiisa Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo ku aadan gobolka NFD